wafdi ka socda wadanka Norway oo hogaaminaya wakiilka gaarka ah ee Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wadanka Norway Mr Fabron oo ay u heliyaan xubno ka socda NIS Foundation oo laga leeyahay wadanka ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Injineer Xuseen Ibraahim Buuni oo ay u heliyaan la taliyayaasha gaarka ah ee wasiirka ayaa ka qabsoomay xafiiska wasiirka xigeenka ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa markii uu kulanku soo dhamaaday waxa ujeedada kulankan ka warbixiyay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Injineer Xuseen Ibraahim Buuni waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa maanta xafiiska nagu soo booqday wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wadanka Norway oo runtii iyo wafdigiisana waxa ka mid ahaa xubno ka socday ama mas'uuliyiin ka socday NIS Foundation Nordic International Support Foundation oo runtii iyaguna ujeedkoodu ahaa in mashaariic horumarineed inay Somaliland ka fuliyaan sidoo kalena wuxuu ergeyga gaarku aanu runtii ka wada hadalnay oo uu socday inuu dawladda cusub ee la doortay uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambaliyeeyo doorashadii xorta iyo xalaasha ahayd ee Somaliland ka dhacday iyo inuu noqday madaxweynihii bulshada Somaliland ay doorteen marka inta laga tago runtii wuxuu inagu amaanay oo uu runtii inagu bogaadiyay doorka la taaban karo ee aynu ku leenahay hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda guud ahaan hadday tahay dhanka doorashada iyo hadday tahay dhanka nabadgelyada iyo hadday tahay dhanka guud ahaan dimuqraadiyaddaba ayuu runtii inagu bogaadinayo inagu amaanayay marka wuxuu la kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta kadibna madaxweynuhu la kulmayay runtii waxaanu ka wada hadalnay dawlad ahaan uga mahad celinay wasaaradda qorsheyn ahaan doorkii la taaban karayay ee ay ku lahaayeen sanduuqii horumarinta qaybtiisii sanduuqa horumarinta Somaliland qaybtiisii koobaad ee SDF1 oo runtii iminka gabagaba ah hase yeeshee aanu runtii ku guda jirno wasaaradda qorsheyn ahaan bilaabistii sanduuqa horumarinta qaybtiisii labaad ee SDF2 waxaanu uga mahad celinay doorkii la taaban karayay ee ay ku lahaayeen dawladdiisu wakiilka gaarka ah sanduuqii horumarinta qaybtiisii koobaad oo runtii si midho dhal leh mashaariic midho dhal qarankan runtii lagaga hirgeliyay waanu runtii uga mahad celinay waxaanu sidoo kale runtii ugu baaqnay oo aanu la socodsiinay inaanu iminka qabanqaabadiisii ku guda jirno sanduuqii horumarinta qaybtiisii labaad ee SDF2 oo dhaqaalaha cadiga ku qoran qorshaha horumarinta qaranka ee guud ahaan aynu qabsanayna cadiga ku qoran uu yahay iyadoo sanduuqa laga maalgelinayo qorshaha qarankani uu leeyahay qorshaha horumarinta qaybtiisa labaad oonu u sheegnay in cadiga dhaqaalaha ku qoran uu yahay 2 milyan wax kor u dhaafayo oo dollar 2 bilyan wax kor u dhaafayo dollar marka waxaan ugu runtii la socodsiinay in qorshahan horumarinta qaranka ee qaybtiisa labaad uu kii hore ka balaaran yahay qorshayaasha runtii qaranka guud ahaan ugu jiraan ay runtii ka balaaran yihiin waxaan runtii ugu baaqnay in door la taaban karo sidii kii hore ay ku yeeshaan sidoo kalena ay kaba soo badiyeen maadaama dhaqaalaha runtii qorshaha horumarinta qaranka ee doorkan inoo yaala uu ka badan yahay kii hore runtii uuna la qaatay aad baan u soo dhaweeyay waanu nagu bogaadiyay kaalinta la taaban karo ee aynu qaran ahaan Somaliland ahaan kaga jirno mandaqada geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka aynu soo qabsanay oo runtii ay mudan tahay inay wadamo badan oo Afrika runtii inaga daydaan oo tusaale aynu u noqon karno iyo guud ahaan mandaqada doorka la taaban karo ee aynu ku leenahay nabadgelyada iyo geedi socodka nabadgelyada iyo guud ahaan dimuqraadiyadda marka runtii kulan muglo la taaban karo ayuu ahaa qolada kale waftigiisa runtii ku wehelinaysay ee NIS Foundation and Nordic International Support Foundation la yiraahdo runtii waxa iyaguna ay u qorshaysan NIS Foundation inay mashaariic horumarineed oo la taaban karo runtii wadanka ka hirgeliyaan baahiyaadkii iyo eriyooyinkii ama goobihii ay baahiyaadka ugu badan ee mudan in mashaariicda laga hirgeliyo runtii waanu la wadaagnay waxaan sidoo kale la wadaagnay buugii qorshaha horumarinta qaybtiisa labaad ee qarankani uu lahaa in mashaariicda ay wadanka ka hirgelinayaan ku salaysnaadaan qorshaha horumarinta qaranka qaybtiisa labaad ee aynu leenahay qaran ahaan aynu runtii u soo jeedinay aad baan u soo dhaweeyeen buugaagtiina waanu la wadaagnay waxaanay hadii ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan qolada NIS Foundation iyo waftiga uu hogaaminayay wakiilka gaarka ah Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wadanka Norway ay ballan qaadeen sida ugu dhaqsaha badan ka hirgelin doonaan gobolada Somaliland mashaariic horumarineed
oo waxtar leh marka haddii la yidhahdo kulankaasi wuxuu noqday ama wuxuu noqonayaa kulan midho dhal leh oon rajaynayna inaynu mashaariicda la hirgelinayo qiimeyntooda iyo maadaamaanu qorshaynay qiimeyntooda iyo dabagalkoodana wasaaradda qorshayntu sida caadiyan aynu muddadan baanu wadnayba ay yeelan doonto haddii la yidhaahdo wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay qarankan u qaabilsan tahay inay qorshayso mashaariicda horumarineeda qarankan laga hirgelinayo sidoo kalena door la taaban karo oo mugla ay ku yeelato qiimeynta iyo kormeerka guud ahaan mashaariicda qarankan laga hirgelinayo ama ha hirgeliyaan oo ha maalgeliyaan laga maalgeliyo sanduuqa horumarinta somalilan ee SDF ama ha hirgeliyaan oo ha maalgeliyaan hay'adaha caalamiga iyo deeq-bixiyeyaasha somalilan ka taakulaya dhanka horumarka iyo bani aadamnimada ama ha hirgeliyaan hay'adaha maxalliga ee wadanka wadaniyiintu ha hirgeliyaan waxay wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka sugi doontaa haddii la yidhaahdo inuu mashruuc waliba sidiisii u qabsoomo goobtii ay dowladdu u qorshaysay uu ku qabsoomo dhaqaalihii loo asteeyina uu runtii wada galo waxaanu rajaynaynaa waanu la kulannay hay'adaha caalamiga waxaanu la kulannay hay'adaha UN-ta waxaanu la kulannay hay'adaha maxalliga waxaanu ugu baaqnay guud ahaan in mashaariicda wadanka laga hirgelinayo jamhuuriyadda somalilan inay ku lug yeeshaan amaba ay ku salaysnaadaan qorshaha horumarinta qaranka ee uu qarankani leeyahay NDP2 sidoo kalena wasaaradda qorshayntu ay doorka yeelan doonto qiimeynta iyo hagista iyo kormeerka guud ahaan mashaariicda qaranka somalilan laga hirgelinayo aad iyo aad baad mahadsantihiin